بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل: أسباب التيمم ثلاثة. أسباب التيمم تيمم كأسباب تيسو ثلاثة صدح وين سببها أما أرنت كيني كرتو إلا تيمم وصدح سببات. فقد الماء سبب ككوبادي أبوه الرئي وحوي فقد الماء بيئو لوايو biyihii ayaa la waayeybo ma la helayo, waa la tayamumayaa. walmarad sababka labaadna waxa weeye almaradu, qofkii biyihii wuu heli karaa laakiin ma isticmaali karo oo waxaa cudurtowday biyihii isticmaalkoodii baa cudurtowday. almarad qofkii waa xanuunsan yahay, biyihii ma isticmaali karo. sababka saddexaad ee loo tayamumi kara waxa weeye walixtiyaaju ilayhi ila almaa licadashi xayawaanin muxtaram. biyihii waa la heli karaa laakiin xayawaan muxtaram ahoo xurmo leh ayaa u ooman biyihii, marka isagoo xayawaan noolo ahoo naf leh oo xurmale uu biyaha u baahan yahay laguma weysaysan karo, laguma dahaaro qaadan karo. xayawaanka muxtaramka aha la waraabinaya biyaha waa laga tayamumaya, waa la tayamumaya. tayamumka sababaha keena ama sababta loo tayamuno saddexdaas sababood wey. faqdulmaa, biyihii in la waayo, maba la heli kara biyihii baa la waayo. qofku biyihiiba waa faqdulmaai xisan. qofkii muxdidka iyo weyse la-aanta iyo kii junubka ee janaabada qabay uu yacni haddii uu biyihii uusan heli karin wuu ka tayamumaya, wuu tayamumaya. walmarad sababka labaad oo min asbaabi tayamumi waxa weeye almarad. marad qofkii wuu xanuunsanayaa oo markaasuuba xanuunku hayaa, biyihii ma taaban karo, ama hadduu biyaha isticmaalo uu taabto wuu ku xanuunsanayaa. biyihii wuu ku xanuunsanayaa. waa marad jirkiisa oo dhan ku qunsan, ama xibin jirkiisa ka mid a ayaa xanuun ku sugan yahay, dhaawac baa ku sugan. marka haddii uu biyaha isticmaalo dhaawici baa ku siyaadayo, ama xanuunkii baa ku badanayo, ama manfacadii xugunka yacni xibinka ayaa tegayso, ama yacni xanuunkii baa ziyaada noqonayo, ziyaadatu yani maradi waalalam, ama waxa kusoo yani xuduudu shaynin faaxishin, xibinkii dhaawac ahaa ama meeshii nabarkaaga yaalla haddii biyo loo isticmaalo dhaawacii wuxuu keenayaa foolxumo weyn buu keenaya, yani si fiican uma bogsoonayo, si xun buu u bogsoonayaa. marka dhaawac foolxun buu noqonaya hadday xibin daahira tahay, muuqanayo muuqanayo. sababahaasoo dhan hadday yimaadaan oo la malaynayo ama la yaqiiniyo waa laga tayamumaya. markaas qofkii wuu tayamumaya, biyaha ma isticmaalayo, wuu tayamumaya. sababka saddexaad oo loo tayamumaya waxaa weeye biyihii ixtiyaaja weye. alixtiyaaju ilayhi ila almaa licadashi xayawaanin muxtaram. xayawaan muxtaram oo xurmo leh ayaa u baahan wey oo u ooman. markaas biyaha laguma dahaaro qaadan karo oo xayawaanka muxtaramka uu ooman yahay, xayawaankaasaa la waraabinayaa. oo xayawaanka muxtaramka ah la garay oo aan isagoo biyihii u ooman aan la isticmaali karin. xayawaan aan xurmo lahayn miyaa jiro? wax noole oo naf leh oo aan muxtaram ahayn biyihii lama siinayo, isagoo oon u dhimanayo ayaa la ysaga dahaaro qaadanaya biyihii. waa kan wey. wa kayru lmuxtaram, xayawaanka aan muxtaramkayn oo xurmada lahayn 6 wey. taariku salaad, salaada qofkii ka tegay,
wazani lmuxsan qofkii asagoo nikaax xalaala soo maray oo wax ku arkay haddana markaa kadib zina ku dhacay oo qof garoob ahoo zinaystay nikaax soo maray, walmurtad kii ridoobay, walkaafiru lxarbiyu gaalkii xarbiga ahaa ee islaamka kasoo horjeeda dagaalka kula jiray, walkalbulcaquur iyo eygii dadcunka ahaa ee boqnogoyska ahaa, iyo walkhinziiru doofaarka. lixdaa xurmo ma leh. biyihii ayagoo u ooman ayaa la isticmaalayaa oo lagu dahaaro qaadanaya. wax xurmo ah oo ay leeyihiin ma jiro lixdaas wey, kayrulmuxtaram baa la yidhaha. lixdaa wixii kasoo haray ee xayawaanka noolaha ee nafta ku jirto waa muxtaram oo xurm uu leeyahayo asagoo yacni biyihii u ooman lama isticmaali karo. in la isticmaalona xaaraam wey, in la isticmaalo xaaraam wey. markaas faslun shuruudu tayamumi 10. tayamumka shuruudiisu waa 10. qofka tayamumayo waxaa laga doonayaa 10 shardi baa laga doonayaa. ama waxa lagu tayamumayo tayamumku qofku markuu ansaxayo suuroobayo 10 shardi baa lagama maarmaana. shuruudu tayamumi 10 an yakuuna bituraabin. waxa lagu tayamumayo horta waa inuu turaab yahay, ciid baa shardi ah, turaab baa shardi ah. an yakuuna bituraabin, turaab waa inuu yahay calaa ayi lownin kaana, ciiddaas midabkay doonaba ha lahaato, walow muxraqan baqiya ismuhu, ciid intii la gubay dab la geliyey madoobaatayba ha noqotay, laakiin hadday ciidnimadii magaceedii baaqi uu ku yahay waa lagu tayamumi karaa. turaab baa shardi ah, turaab baa shardi ah, ciid waa in la helo. maxaa yeelay yani ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay fatayamamuu saciidan dayiban, fatayamamuu u qasda saciidan turaaban dayiban daahiran wey, daahiran wey. marka saciidka waa turaab, marka ciid baa shardi ah. wa an yakuuna turaab waana khilaafiya masaladaas oo imaamu shaafici iyo a'imada yani qeyb ka mid ahaa waxay qabaan waxa lagu tayamumi karo oo tayamum ku ansaxayo inay tahay turaab, boor, ciid waa inay tahay. saasay aayadda ku fasirayaan, fatayamamuu u qasda saciidan ay turaaban wey, turaaban khaalisan lahu qubaar. waa ciid khaalis ahoo yani una bacaad ku jirin oo aan wax kale lagu darin, oo haddana lahu qubaar, boor lahoo markaas sidaa gacanta u saarto boor kaasoo raacayo, siiga kaasoo raacaysa waa inuu yahay. dayibantana bimacnaa dahuuran weeyaho waa turaab daahir ah wey. turaab waa in la helo, haddana turaabka waa inuu daahir yahay. labadaa shardi haddii la waayo tayamum kuma ansaxayo. haddii wixii turaab uusa ahayna tayamum kuma ansaxayo, laguma gabaysan karo. hadduusa daahir ahayna ciid nijaasa ah wey, turaab nijaasa ah laguma tayamumi karo wey. bacdul a'ima waxay leeyihiin, sida imaamu axmed iyo a'imada qaar ka mid a waxay leeyihiin yani turaab waxba shardi meehe, saciidka waxaa looga jeedaa kullu calaa maa wajhi lardi fahuwa saciid. ardada dusheeda wixii saaran oo dhanba saciid baa la yidhaha. marka wax kastoo ardada dusheeda yaalla waa lagu tayamum karaa. geedaha lagu tayamum karaa, dhagaxa lagu tayamum karaa, derbigaa lagu tayamum karaa, wax ardada korkeeda saaran oo dhan baa lagu tayamum karaa bay leeyihin. marxaba. marka xagga ixtiyaadada iyo dadaalka inaad cibaadadaada dhowrto ood ku dadaasho xagga madhabka imaam shaafici baa ku dhow. xagga tashiilka markii la yidhaahdo fududaynta dadka loo fududeeyana xagga madhab imaam axmed baa ku dhow iyo aimada la socoto. marka labadaa madhabood weeye. marxaba. an yakuuna bituraabin, turaab waa inuu yahay. wa an yakuuna turaabu daahiran, turaabka waa inuu daahir yahay. wa an laa yakuuna mustacmalan, turaabka mid la isticmaalay waa inuusa ahayn. mid la isticmaalay oo horey loogu tayamumay waa inuusa ahayn, mar labaad laguma tayamumi karo. yakuunu turaabi lmutayamami fiihi gayru mustacmalin fi xadath, waa inaan xadadka loo isticmaalin oo aan lagu tayamumi.
mustacmal waxaa la yidhaha sidiis. ma huwa almustacmal? biyaha markaanu ka hadlaynay biyaha soo maraynay mustacmal, biyaha mustacmalka la yidhaha. mustacmal maxaa la yidhahda? maa rafaca xadathan ow azaala khabathan, wixii xadath kor yeelo ama nijaaso lagu zuuliyaa mustacmal la yidhaha. masalan biyaad ku weysaysatay, biyihii aada ku weysaysatay baad weel ku horisay oo weel baad ku kor weysaysatay, baaf baad ku kor weysaysatay. biyaha aada ku weysaysatay waa mustacmal markaad weysadaadi dhamaystay, lanna xadath baad ku kor yeeshay, waad ku weysay sooma, xadath baad ku kor yeeshay. biyahaas marka wax taqayura haddayna ka muuqanin oo biyaha midabkoodii urtoodii isma bedelin, wax taqayura kama muuqdo, ziyaado iyo nusqaanna male, waa iska intoodii markaad ku weysaysanaysa un. biyahaas waa iska daahir, waa la cabi karaa, waxbaa lagu karsan karaa, waa daahir wey mustacmalku. dayna wax ziyaada iyo taqayur iyo midna aysan taqayurna lahayn, ziyaado iyo nusqaanna ay lahayn, badan ayna ku jirin, waa daahir. laakiin xadath dambe ma kor yeeli karaa, weyse kale ma geli karaa, nijaaso ma zuulin karaa, ma dhaqi karaa, waa mustacmal. mar baa xadath lagu kor yeelay bas mustacmal baa la yidhaha. haddii nijaaso lagu zuuliyana waa la midoo, haddii intii nijaaso lagu dhaqo biyihii weelkaa lagu shubana wax ziyaada aysan lahayna waa la mid, waa iyaduna aga. marka mustacmal waxaa la yidhaha wixii xadath kor yeelo ama nijaaso zuuliyo, kaasaa la yidhaha mustacmal. waa wax la isticmaalay, mar labaad lama isticmaali karo. haddana marka turaabka ciiddu say mustacmal ku noqonaysaa? masalan qofkii ciiddi weel buu kusoo ritay, meeshanay ugu jirtaa, wuu ku tayamumay. markaad ku tayamumtay ciiddaas aad ku tayamumtay mustacmal miyay noqonaysaa? may, taa looma jeedo. mustacmal waxaa noqonaya waxa weeye markaad wejiga mariso turaab, intaad saar gacanta turaabka aad wejiga mariso, haddii wax kasoo daataan midaa wejiga wixii aad marisay hadduu kasoo daato, taas inuuna ku noqonin baa la doonaya weelkii. ama tii gacanta aad marisay, ciiddii aad gacanta marisay, waa inayna ku noqonin. marka kan waajibka kor yeelay waxa lagu tayamumay waa midkaad wejiga marisay iyo gacanta markaad marisay, kadib wixii kasoo daato kaasaa leedahay. laakiin haddaan weelkii waxba ku daadanin, weelkaas muddo badan baa isaga tayamum kartaa weliga, kor baad kasoo qaadanaysaa oo tuyimaysaa. waxaad wejiga marinaysa ama gacanta marinaysa waa inay wixii kasoo duulduulo ciiddaas ama kasoo daato waa inayna ku noqonin weelki. waanlaa yakuuna mustacmalan sidaa wey. waanlaa yukhaalidahu daqiiqun wanaxwu, turaabka markii lagu tayamumayo waa inayna ku darmanin daqiiq, budo, meelahan wax kaloo budo ahoo la shiiday waa inayna ku darmanin, iyo wanaxwu wuxuu la mida. turaab khaalisaha la doonayahay, wax kale waa inuuna ku darmanin. wa an yaqsidahu, waa inuu u qasdo. wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo, oo waa inuu u qasdo macnaha waxaa la rabaa ciidda inaad adigu aada soo qaadato gacantii, ama aad dhul ku dhufato, ama aada yacni walow bilhawaa, hawadaaba aad kasoo qabsatid oo dabayl baa yani ka dhabanaysa, hawadaas aad kasoo qabsatid, qasad baa lagaa doonaya wixii inaad adigu gacanta soo qaadato ood markaa marisaa la doonaya. wa an yaqsidahu maxaa la diidayaa? haddaad adiguba u qasdin oo dabayl baa un kugu dhabatay oo siiga fara badan baa wejigaaga iyo gacmahaaga ku dhabatay, taas ma ku noqonaysa tayamum. qasad baa raba in la hele. aturaaba yani qasdu mutayamimi aturaaba binaqli waayo, walow bificli gayrihi biidni. qof kaleba yani ii tayamum ba ha yidhaahdee, qasad baa la doonayaa, qasad. wa an yamsaxa wajhahu wa yadayhi bidarbatayn, wejiga iyo labada gacmood waa inuu darbatayn mariyo. darbatayn, tayamumku waa darbatayni, darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni. mar baad ku dhufanaysaa gacanta, wejigaad marinaysaa, mar labaad baad marinaysaa gacanta bidaxa, tan midigtaa saa u maraysaa, gacanta midigna midda bidaxa saa u marin. labadaa jeer weeye tayamum. tayamumku waa darbataynkaas. haddaad weyse la-aan ka tayamumayso iyo haddaad janaabo ku tayamumayso ood qabiis ka tayamumayso waa isku mid un. xibnaha laga tayamumana wejiga iyo labadaa gacmood un way.
tayamumkuna labadaa jeer uma darbatayn wey, darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn bas khalaas. wa an yamsaxa wajhahu wa yadayhi bidarbatayn wa an yuziila nijaasata awalan, nijaasada waa inuu iska zuuliyo marka hore. markaad tayamumayso hadday badankaaga nijaaso ku taalo, nijaaso aan lagu cafinin, aan macfi ahayn baa kugu taalo. nijaasada macfiga ah waxyaalaha waa yar waxaan ishu arkaynin iyo wax yar oo maca dhiig yaroo kaasoo baxay iyo waxyaala nijaaso macfi ah la yidhi. nijaaso yar yaroo macfiyaad aha jirto. nijaaso lagu cafin macfi aan ahayn hadday jirkaaga ku taalo oo meel baa nijaaso kaaga taalla, intaada tayamum nijaasada waa inaad iska zuuliso. wa an yuziila nijaasata awalan, nijaasada marka hore waa inuu iska zuuliyo. izaalatu nijaasati lbadani gayri lmacfuwi canha qablahu qabla tayamum, ayna mkanat hadday zuuroobayso wey. waxaad iskaga dhaqda nijaasadaas iskaga zuulisa haddaad hayso. haddaad biyo la-aanba u tayamumayso ood biyaba haysanin, jirkiina nijaaso ay kaaga taalo, biyo la-aan baaba u tayamumaysa, maxaad nijaasada ku zuulin? wax ku dhaqma haysid. waa hadday suuroobaysa imaamkanad nijaasadaas marka hore iska zuuli. biyo yar baad haysataa oo nijaaso aad ku dhaqi karta laakiin aan weyse kuugu filnayn, nijaasadaas aad isaga zuulinaysaa, waa tayamumaysaa. haddii wax lagu zuuliyo la waayana fayasixu tayamumuhu macaha maca nijaasati cinda ibni xajar. ibn xajar iyo yani imaamu ramli ayaa iskhilaafayo. labada yani sheekh ee marjica fiqiga shaaficiga ugu waaweyn ee la yidhaha qamaraynka la yidhaahdo, oo labadooda qowl ay siman yihiin, midkaad doontaad qabsan kartaa. marka nijaasadii wax lagu zuuliya badankaaga meel baa nijaaso kaga taallaa, waxaa ku zuulisana ma haysid. waa tayamumaysaa, waa tukanaysaa. fayasixu tayamumuhu macaha cinda ibni xajar wa yusalii salaada faaqidi duhuureyn cinda ramali. haddii aad nijaasadii kugu taallo oo waxaad ku zuulisana aada haynin, iska tayamum, iska tukulaya ibni xajar. imaamu ramaliguna wuxuu leeyahay ma tayamumay sida iska tuko, adoon tayamum baa iska gelaysa. faaqidu duhuureyn baa la yidhaha. salaatu faaqidu duhuureyn waxaa la yidhaha haddaad biyo aad ku daharo qaatana aada weydo, ciid aad ku waxa taraab aad ku tayamumtana weydo, ama meel xabsi ah aadba ku xihan tahay oo meeshaad ku xihan tahay waa meel xabsi ah, meesha waxaan oo dhanna waa nijaaso, derbigii iyo macalgudi meel kasta waa nijaaso. faaqidu duhuureyn, salaatu faaqidu duhuureyn, nin dahaaro waayey waa iska tukanay, waad salaadii waad iska geli, waad xidhani, waad iska tukan. haddaad meel ku xidhan tahay, meesha aad ku xidhan tahayna meel nijaaso ay tahay, laguma sujuudi karo, waa nijaaso meesha. waad istaagi un salaada, waad iska rukuucaad ka ishaaraysaa, sujuudi iyo rukuuciba waad ishaaraysaa, ee meesha nijaasada wejiga dhigi maysa. maxaa la yidhahdaa salaadu say kuu qabataa loo tukadaa, soo lama yihahda, waa siday kuu qabata wey. salaad meel looga tegaayaa ma jiro, saad baad ku tukani, hadhowna salaada waa soo celi. wayajibu calayhi alqadaau cindahum, labada jeerba salaada waa soo celinaysaa. oo nijaasada adoo kugu taalaad iska tayamumtay waa tukatay, ama maada tayamumina waa iska tukatay. saasay labada imaamba leeyihin, ibn xajar iyo ramali. salaada labada goorba waa soo celinaysaa mar haddii badankaaga nijaaso ku taalo aan la zuulini. wa an yajtahida fi lqiblati qablahu qabla tayamum, intaada tayamun horteed waa inaad qibladii ku ijtihaado. markaad ogaato qibladu meeshay jirto, haddaad qiblada kaa wareersanayd wey, marka hore garan lahayd, marka hore qibladii raaraadi, markaad meel u malayso markaasaad tayamumaysaa, horaad ka gelaysa salaad. wa an yakuuna tayamumu qabla dukuuli lwaqti, wa an yakuuna tayamumu bacda dukuuli lwaqti. tayamumku waa inuu yahay waqtigu markuu galo kadib. oo tayamumku waa dahaaro daruuro ahoo biyo markii la waayo waktigiina galo oo salaadii inay kaa tagto aad ka yaabto, markaa unbaa tayamumaysaa. waktigii oon weli la gaarin iskama sii tayamumaysa, inaad biyo heshaaba laga yaabaa. waa inuu waktigii galo kadib, markuu waktigu galo kadib baad tayamumi kartaa. wa an yakuuna tayamumku waa inuu yahay bacda dukuuli lwaqti, waktiga markuu galay kadib wey.
وأن يتيمم لكل فرض قفك وإنه تيمم صلاة كستو فرضة هل صلاته يعني هل تيمم الله بفرض كم تكن كرتي ظهر كيبا بيو ويدي واتيممتي عصر كيبا قالي هذا واتيمم هذا بيه لهين مغرب كيبا هذا قالي واتيمم عشي با هذا قالي واتيمم هل تيمم الله بفرض كم تكن كرتي وأن يتيمم لكل فرض فرض كلا أركا وإنه أتيمم فرض كسته وإنه أتيمم فصل فروض التيمم 5 تيمم كفرضيال كيسو أما أركان تيسو 5 شنوي الأول كان كوباد نقل التراب عيد وين سوق قادت قعنتي بعد صار سعيدي وكسوق قادنيسا نقل التراب عيدي وسوق قادوي الثاني كلا بعد النية وإن النيوتوي حنيونيسا استباحة فرض صلاة استباحة فرض صلاة نويت استباحة فرض صلاة صلاة بارتينة تكسوما نويت استباحة فرض صلاة تيوم كسيديسا استباحة وحوى البرنيسان يسايا رفع الحدث معها وبيهو حدث كوي كوريا ليين ويكازو لنيين لكن تيممك واتكو برنيسان يسا صلاة دينا تكتو كتاب القرآن كاينات قادو قرآن كاينات أخرسو ساسا تكو برنيسان يسايا واستباحة مالك استباحة فرض الصلاة ساسا الليل مالك صلاة كان يسوي الثالث كصدح المسح الوجه وجهي والله مسحوي وجهي المسحيسا مركز ساو مريسو غعنت اسارتو يا وجهي مرنيسا مركز غعنت عيد ساريسا يا نيونيتا يا نيوني نويس استباحه فرض صلاه اقول فنسا الى اد وجهي كم مريسا غعنت نيده وهينيسا الرابع كنفرات مسح اليدين الى المرفقين غعمها وين المسحدو الى ايو جقلده اما الى حصلك انت ويسده لمرين جري با تيمك يعني ياد غارسينيسا والا جقلك مرنيسا مسحيسا الخامس كشان الترتيب بين المسحتين لبدا مسح وانات كلا ترتيب يسوي الترتيب بين المسحتين ضربة للوجه وضربة لليدين تنكوبات وجهك مريني marka labaadna gacmaha marيني وترتيب باشرتي أو ترتيب وين هذا جمعها كهر مرين وجهه وينه هرية جمعها أنا الوحجني فصل مبدلات التيمم 3 تيممك واحد برينية وصدح صدح الرماد وتيممك كبرى ما أبدل الوضوء وحل وحي ويسبرية وبرينية وحكسه ويسبرينية تيممك كبرى أنا واقد وضوء وتقرني سواء صومرنا قف هذا وح كسبح خارج وكسبح هذا قف النبي أتابته هذه يعني وفرج تابته وحي ويسد برينية تيمم كانوا برينية ما أفضل الوضوء وحلا وحي ويسد بري تيمم كانوا برينية والردة رددنا ويبرينيسا قطع الإسلام حقيقة أو حكم بالي ردد قف كبا إسلام نمدي كبحي أعوذ بالله تيمم كيسنا وابري وبريا مرادو ردوغا وتوهم الماء بيئ الله ملايين ويبرنيسا انت يمم لفقده فقد الماء حدي آد مركه هور بيئ الآن واحد أتيمت هدي لهيد بيئ الآن أهيد oo biyo aad tawahumto qalbiga ay ku soo dhacdo meesha in biyo laga helayaan marinaya ama biyo heli lahayd tayamkaaga wuu buray meeshaas waa inaad biyo ka raadiso markaad ka weydo hadaad ka weydo kadib markaa uma tayamum hadana marba hadaad biyo tawahumto waa inaad helayn baad u malaynaysaa hadaad tiraado wuu buraya tayamkaaga wa tawahumul maa'i in tayammama li faqdihi faqd al ma' توهمك حلل الظن والشك واد مليسين بيهلس اما واد كشكيسي وكا به وهو اركي ضرور او كالعاد ماشا كبوغ الكاسي شو روبا قد ماشا اما السراب هو اركي سراب ماشا كبرق برق بيه شو واحد بيه حق سجل شو
saraabku waxaad biyo umalaynaysa waay markaad oomantahay qoraxduna aada u kulusha meesha banaanka waxa biyo usaa u waran baad moodaysa alkusaa u waran saraab baa le dhaandamangaale kaasa la marxam marka haddaad waxaas umalayso biyo inaad helaysaba umalayso bas wey tayamkaagi wuu buray meesha waa inaad fiiriso horta faslun aladi yadhuru min النijaasaati ثalaaثa aladi kii yadhuru daahir noqonayay oo min النijaasaati nijaasooyinka ka mid a halaaثatun saddex waaye nijaaso shay asagoo nijaaso ahaa haddana daahir haddana noqonayo daahir u noqon karo waa saddex shay aladi yadhuru min النijaasaat halaaثatun saddex way alkhamru idaa takhallalat binafsiha alkhamru khamradii daahir bay noqonaysaa idaa takhallalat hadday khalowdo binafsihaa nafteeda khamro waa nijaaso waana xaaraan wax alla wixii muskir ah oo qalbiga iyo xiska qaadayo yaa la yidhahdaa khamru kullu muskirin khamr wa kullu muskirin wa kullu khamrin xaraam wax alla wixii muskir ahoo wax waaliyo oo caqliga qaado waa khamro khamro kulligeedna waa nijaaso waa nijaaso wey marka khamradii way isbedeshay oo markii la cabo waa lagu waalanayo soo maa keligeed baa meel la dhigay say u joogtay unbay isbedeshay inqilaab baa ku dhacay way isbedeshay waa wax macaan oo la iska cabayo malabahay noqotay oo wax iskaar ana aan lahayn waxba waalinaynin daahir bay noqonaysaa khamradu daahir bay noqotaa waxba laguma ridin wax laguma samaynin daahir bay noqonaysaa ayadii baa daahir noqonayso weelkay ku jirtayna daahir buu noqonaya hataa markii hore ayna daahir ka ahayn waa iyadii iyo weelkeediiba hal maray isbedelaysaa khamradii haday isbedeshay khal noqoto way wa jildulmaytati maytada harageedii ama maqaarkeediina daahir buu noqonayaa idaa dubiqa haddii la magdiyo maqaarkii shaygu hadduu dhinto mayta maxaa la yidhahdaa wixii dhintay oo bikayri dabxin sharciyin gowrac sharciga aan ku dhimanin waa mayto wixii aan ma'kuul ahayn de hadduu markii horeba maytadiisa waa iska dee waa nijaaso wey waa lama wixii xalaasha ahaa ee la cunayay ma'kuulka ahaa ee la cunayay haddaan sidii sharcigeed loo gowracin lama gowracin ama waa la gowracay gowraciisa waxbaa ka dhimana si sharcigeed looma kamilin maytuu noqonaya waa bakti wey marka mayto idilna waa nijaaso harageeda hilibkeeda lafaheeda waxeeda kulli waa nijaaso marka maytada haragga bas awey maytada harageeda daahir noqonaya goormuu daahir noqonaya idaa dubiqa markii la magdiyo wey jildulmaytati idaa dubiqa daahir buu noqonaya oo see daahir u noqonaya marka hore wax dhahaaraa ma aqbalaynin maqaarkan intaan la magdinin ee dhogortiisa iyo wixiisa u watay dhahaaro ma aqbalaynin haddii biyo kasta la geliyo laakiin markii la magdiyo oo kor iyo hoosba laga magdiyo markaas wuxuu noqonayaa maradaas oo nijaaso gaartay haddii biyo la geliyo sooma daahir noqonayso saasoo kale noqonaya biyo unbaa saas loo gelinaya bas daahir buu noqonaya aluu tukanayaa ama wax gobol baa laga samaysanaya ama waxbaa laga tolanaya caadi wey ma la isticmaalaya maytadu markay dhimato maqaarkeeda lagala baxa waana la magdiyaa saas neef ari ahoo dhintay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arkay umeydahoo yaal markaasuu yidha hal intafactu war maxaad ugu intifaaci weydeen markaas yaa rasuul allah inahaa mayta way baktiday maxaan ku intifacna markaasuu nabigu yidhi alay sl inamaa xaruma akluha hilibkeeda in la cunaa la diiday haragga haddaad kala baxdaan oo haraggeedaa la magdiyo daahir buu noqonaysa
وحكى النبي عليه الصلاة والسلام حديث كله أيما إهاب دبق فقد ظهر مقار الله مقار كي لما قديه ظاهر بنغنية لكن جلد الميتة ظاهر بنغنية إذا دبق مقار كي ظاهر بنغنية دبق هذه لما قديه وما صار حيوان نور وحي النقدنا ظاهر بنغنية وما صار حيوانا نجاسدي يا وحكسو دحبحي حيوان نور النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة إذا صارت دودا ميت بختي ما ماشي يال نفا كو بختي ماشي يال جو وريو مركز دحربا كذا شيء ميتة دي نفته دي مو دحرقي كذا شيء دحرقا كذا شيء حيوان كنور نقضيه صعوناي ظاهر بنغني ميتة بختي نفته دي كذا شيء هو نجاسة كذا شيء لكن حيوان نور بنغض مركا واقد دحرقي واسك صعدا وتري حيوان نور اسك صعدو نغض حيوان كاس دحرقا صعدا هذا دو كتابته نجاسة وهي لما أرني واضح سبته حيوان نور هو أي ضفار يوحي أي كفر عم أن هاي نجاسة مجرى حيوان ككلام نوع اسك ظاهر وده حيوان كان دحرقا ميتد وكذا شيء ميتد من النجاسة هاي أيدي بو كذا شيء ليه أيدا إله دحديدو إلهي كأبوري ميتدا لغما أيدا نفتيدا من قديم بالي لكن والله دح أبوري والله دح أبوري marka wama saar xayawaan sidaa wixii xayawaan nool noqdana daahir buu noqonaya saasay leeyihiin culimadu waxay leeyihiin yani waa laga dhex abuuray kownul xayawaani makhluuqan fiiha laa minha waa laga dhex abuuray waayo iyada lagama abuurin nijaasada lagama abuurin faslun annijaasaatu halaaatun nijaasadu saddex waaye nijaasooyinku waa saddex muqallada mid la adkeeyo xukunkeedu adag yahay wa mukhafafa mid la fududeeyey wa mutawasida iyo mid dhexdhexaad ah nijaasada saddex qaybood bay noqotay mid muqallada la yidhahdo xukunkeedu aada u adag yahay midna waa mukhafafo wuu fudud yahay xukunkeedu midna waa mutawasida waa dhexdhexaad saddexa qaybood way nijaasadu almuqallada midda la adkeeyey oo xukunkeedu uu adag yahay nijaasatu lkalbi waalkhinziiri wa farci axadihimaa ay iyo doofaar iyo wixii ka farcamo wey midkood ka farcamay waa nijaasa muqallada way adag tahay wey ay nijaasadiisu waa muqallad waa in 7 jeer la dhaqo sida loo daahirinayo kuu sheegi doona doofaarka nijaasadiisuna waa saas muqallad wey wa farci axadihimaa midkood farciisi farci axadihimaa maxaa laga wadaa yacni eygii iyo xayawaan kaloo daahiraha iska dhalay masalan ey iyo neef ariha iska dhalay ey buu noqonaya waxaas doofaar iyo neef loha iska dhalay doofaar buu noqonaya wamaa tawallada minhuma aw min axadihima wey labadoodu waxay iska dhaleen iyo wixii midkood xaggiisa ka dhashay maca xayawaanin daahirin wey maca xayawaanin daahirin نجاسة مقلدو نقنية حكم كده وانقاري دوناي والمخففة مخففة محل ده نجاسة مخففة بول السبي الذي لم يدعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين نجاسة مخففة هي فضود وحوي ويل كي يرى كاديسي ويل كاسو ولي آن عانا وحانهين آن عنن الراشنة لبسنا آن قارن نجاسة ديسو مخففة كاديس بولو سبي أفر شردي بقى ماشان لو حيري سبي وشردي هرت ويل وإنو يه سبيد بقى بحيسة قبر النجاسة ديدو كادي ديدو مخفف من نقطه وأذكتها سيدو قفك وين كيسو كان الله رقيا مركا ويل وشردي سبي وشردي وسبيد بقى بحيسة بول نواشردي وإنه ويل يهي يعني كاذي وإنه يتهي سحرة دي بقى بحيث وسحرة مخفف من نقطه لم يدعم غير اللبن ويلك وحن عانا هاي وإنه سن قادنينو راشنهان وقدأهان وقو كافتومو ناس كولي نوغيا كما كافتومي كرعاناس
cuntada kale kuma kaaftoomi karo intuu caanihi ka kaaftoomo ma gaarin. walam yabluq ilxawleyn, 2 sanana ma gaarin. intaa markii la helo kaadidiisu mukhafaf wey. hadday wuxuu kaadi ahayn mukhafaf ma aha. wiil baa lagu yihi hadduu gabar yahay walow haddii caawo dhalato nijaasadeeda kaadideeda mukhafaf ma aha, waa muqallad adag tahay. oo wiilka iyo gabadha maxaa kala duway baa la yidhaha. wiilka kaadidiisa mukhafaf baa laga dhigay. wiilka kaadidiisa yani waxaa kala duwa wiilka iyo gabadha. wiilka inta badan waxaa dadka lagu imtixaamay inay qaadaan, waa la jecel yahay. qof kasta wiil markuu dhashay wiilka waa la qaadayaa. marka xukunkii baa loo fududeeyey dadka, waa loo fududeeyey. qofkii qaadaba inuu ku kaadiyaa laga yaaba, dacanigu iska kaadinaya markuu yaryahay. 2 sanana ma gaarin. walam yabluq ilxawleyn. walmutawasidatu nijaasada mutawasidada ah saa'iru nijaasaat, nijaasooyinka intoodii kala way. oo wiilkii 2 sano aan gaarin kaadidiisii iyo ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay markii laga reebo wixii kaloo nijaaso aha waa mutawasido. nijaasadiis xukunkeedii waa karata sida loo dahirayo. almuqalladatu nijaasadii muqalladada ahayd ee la adkeeyey tadhuru way daahir noqoni b7 qasalaat, 7 dhaqmay ku daahir noqoni bacda isaalati caynihaa, caynteeda markii la zuuliyo bacdigeed. ixdaahuna 7 mid ka mida bituraabin mamsuuja, lagu dheehay bituraabin turaab lagu dheehay. ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay nijaasadoodu waa muqallado. maxay ku daahir noqonaysaa? 7 jeer in la dhaqo. 7 jeer in la dhaqo. 7daa jeer oo weliba bacda isaalati caynihaa, caynteeda markii la zuuliyo. oo bacda isaalati caynihaa maxay tahay? nijaasadii meeshay ku taallaa, midabkeedii baa muuqanaya. horta midabkeedaa meesha laga zuulinaya, waa la dhaqaya. markii la gooyo oo midabkeedii la baabi'iyo kow baa laga leeyay markaasa 6 kale lagu daraya oo mid ciid tahay. bacda isaalati caynihaa saas wey. ama way uraysay, waa in urkeedii la gooyo. horta mar urkeeda go-a kadib yaa markaa 7 jeer baa la dhaqaya oo mid ciid tahay wey. eyga nijaasadiisa in 7 goor la dhaqayo xadiidka caddeeyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum, axad adinka idinka mida weelkiina hadduu ey galo 7 jeer dhaqa. faqsiluuhunna 7 maraat ixdaahunna bituraab, 7 jeer oo mid ciid tahay dhaqa. marka eygii buu xadiidku ku soo arooray. doofaarkiina waa looga qiyaastay liannahu akhbathu minhu, asagaa kasii xun wey. oo eygu manaafici buu leeyahay, doofaarku wax manfaco uu leeyahay male. makhluuqa ilaahay xayawaanka ugu liito ugu akhasa waa khinsiirka le. wax manfaco aho uu leeyahay haba yaraata ma jirto. eyga manaafici buuba leeyahay, waa la tacliimiyaa, waa lagu ugaarsadaa, xooluhu ilaaliyaa, beertuu ilaaliyaa. waa xayawaanka ugu caqliga badan oo ugu dhugta badan oo ugu tababarsan, ugu qaadan og. sifaad wan wanaagsan buu leeyahay eygu, manaafic badan buu leeyahay. laakiin doofaarku wax manfacaho uu leeyahay mamale haba yaraata. waa xayawaan ilaahay khalqay u bas, manfaco male. laakiin akhasu lxayawaanaat baa layidhaha. xayawaanka midka ugu liitaa la yidhaha waa khinsiir. lamiir male, waxba ma kala ogaa la yidhaha. wuu ka duwan yahay xayawaanka dhan, wuu ka duwan yahay. kiiro male, waxba kama kiiroodo, wax uu kala garanaya male. waa kaa qofkii cunana asaga umuu la mid noqon. wixii cunana saasoo kale umur wax damiiro uu yeelanayo mare, kiiro ma yeelanayo. walaashiisuu gacanta la haysto meeshan hadduu arkay iyo xaaskiisii danka male. waa saasuu noqonaya, doofaarku la mid noqonaya. xayawaanka intiisa kaleo dhan kiir uu leeyaha la male kan. marka aqasul xayawaanaat marka waa looga qiyaasaasna. bacda isaalati caynihaa ixdaahuna bituraabin. almuqalladatu tadhuru b7 qasalaat bacda isaalati caynihaa ixdaahuna bituraab. waa nijaasadii muqallada ahayd. 7 jeer oo mid ciid la dhaqay, mid ciid tahay baa la dhaqay. walmukhafafatu nijaasadii mukhafafada ahayd. mukhafafa maxay ahayd? bowlu sabiyi alladii lam yadcam kayra laban walam yabluq ilxawleyn. wiilkii kaadidiisii waa wiilkii aan waxaan caana ahayn cunin, 2 sanana aan gaarin soo ma. wiilkaas kaadidiisu waa mukhafafadii
tadhuru birashi lmaai calayha maca algalabati wa isaalati caynha. hal mar baa biyo saa loogu shubaya bes. biyo haddii lagu shubo biyahaas maca algalaba waa lagu badinayaa, khalaas way daahir noqonaysa. tadhuru birashi lmaai calayha, biyaa lagu shubayaa maca algalabati wa isaalati caynha. biyo badan baa saas loogu shubaya, waa la raacinayaa, caynteedina waa la zuuli bas. walmutawasita, tii mutawasitada ahayd, tanqasimu ilaa qismayn, laba qaybood bay noqotaa, cayniya wa xukmiya. nijaasada mutawasitada labadaa bay noqonaysaa, cayniya mid la arkayo iyo wa xukmiya mid meesha lagu ogyahay, labadaa qaybood. cayniya waxaa la yidhahdaa yani nijaasada muuqato, waa kasaa kuu fasiraya kitaabka. alcayniyatu, tii cayniyada ahayd, hiya latii tii weeye, waa nijaasadii weeye, lahaa lownun midab bay leedahay, wa riixun ur bay leedahay, wa dacmun dhadhan bay leedahay. cayniyaa la yidhaha, midabkeedaa meesha ka muuqdo, meesha ku taallaa baa la arkaya, meesha nijaasada ku taallo way soo ureysaa, urkeedii baa muuqdo. dhadhan bay leedahay, nijaasadu dhadhan bay leedahay, dhadhankeedii baa dhadhamaya. cayniyo wey, awsaaftii wax lagu garanayay, aragtidii iyo urtii iyo dhadhankii waa wax lagu garanayay yay qabtaa, cayniyaa la yidhaha. falaa budda min isaalati lowniha wa riixiha wa dacmiha, waa in midabkeedii la zuuliyo, dhadhankeedii la zuuliyo, urteedii la zuuliyo. nijaasada cayniyada markaa umay daahir noqonaysa. haddii la zuulin waayo ay baaqi, intay baaqi tahay, intay weli soo ureyso ma daahir noqonayso. inta yani dhadhankeedu baaqiga yahay, inta urkeedu baaqi yahay ma daahir noqoni. waa in la zuuliyo wey, caynteeda waa in la zuuliyo. haddii la goyn waayo, midabkeedii baa meesha ku yaala, waa la dhaqay, waa la goyn waayo. wixii wax goynaya, waxyaala wax gooyaa jira loo isticmaalay, waa la goyn waayo. in marada la goynayaba mooyaane wax kale si kasta waa lagu kari waayo. markaas kadib waa la iska cafinayaa, maxaa yeele marada goynteedu oo la gooyo idaacatu maal baa ku sugan, maalkoo la dayaco. marka haddii wax walba lagu isticmaalo oo la goyn waayo, macfi bay noqonaysaa. laakiin waa inayna laba isku darmanin, midabka keligii waa inuu yahay. hadday urti iyo midabki isla baaqi tahay, urtina weli way soo ureysaa, midab wax kasta waa lamadi. taas ma laba hadday isla socdaan lama cafin kareen. waa sidaas wey. nijaasada waa cayniyadii. walxukmiya, tii xukmiyada ahayd, hiya latii weeye, tii weeye, laa lowna walaa riixa walaa dacma lahaa, ur male meesha kama soo ureyso, midab la male meesha kama muuqato, dhadhan male. laakiin meesha inay gaarto, nijaaso gaarto waa lagu ogyahay. nijaasa kugu soo faniintay, wax ka muuqda meesha male, laakiin waad ku ogtahay, xukmiyaa la yidhaha. yakfiika waxaa ku kaafinaya jaryulmaai calayha, biyo unbaa saa uga raaxinaysa. iyadu wax la zuulinaya male, urteedii iyo dhadhankeedii iyo midab iyo wax la zuulinaya male, biyo un saa u raaci bas, way daahir noqotay. hal mar ma biyo saa u raacaysa, xukmiyaa la yidhaha. marka nijaasaadku waa saddexdaa qaybood, muqallado iyo mukhafafo iyo mutawasito, saddexdaa qaybood. waa inaad taqaana nijaasada sida loo zuulinayo, la ysaga dahirayana waa inaad garanayso. faslun aqalu lxaydi yowmun walayla. xayd waa dhiigga dumarka ku dhaco, waa jabali oo waa dabeeco, waa dhiig ilaahay ku dabeeceeyey banaati aadam gabdhihiisa, awlaadi gabdhihiisa ilaahay ku dabeeceeyo. gabadhu markay wakti gaarto, 9 sana ugu yar intuu dhiiggu ku dhacay, waan soo marnay. 9kaa sano iyo kasii weyn iyo gabadhu dhiiggu ku dhacaa. dhiig xayd la yidhaahdo oo wakti un iska imaadaa jiro, waa dabeeci wey. dhiiggaas marka muddada uu gabdhaha hayo see intuu ku dhacaya, intuu haynaya. aqalul xaydi, xaydka muddadiisa waa muddada gabadhu ay dhiigga qabi kartay ugu yar yowman walayla, 24 saac wey. 24 saac, 24 saaca. haddii intaas waa inuu dhiigu inuu fara badan yahay, waxba shardi maaha, laakiin waa inuu joogo un, waa inuu qoyaankiisi la dareemayo intaas 24 saac bas. marka 24 saac markuu joogay ayuu dhiiggii la waayay, oo iska qalala meesha, way ka qabaysanaysaa. yowmiya walayla, habeen iyo maalin baa ugu yar 24 saac. wa qaalibuhu, qaalibkiisu siday gabdhuhu u badan yihiin waay, badankooda 6 aw 7,
6 أيام أو 7 أيام بلياليها مع لياليها بياك ودي لقب لح مع الموت يلح دودي هبين تدور مع الموت أما يتدور هبين وسيد الدمر أبديهين وي غالبك سيد أبديهين وي وأكثره أكثر كيس ماشي أبديه ديقا حيلك أسو لا فكرين 15 يوما بلياليها وي شن يتبن مع الموت يهبين هودي وي لبا ويق وكاملو قبل ديقا شن يتبن مع الموت وديق انت ugu badan way kama badan karo markaas kama badan karo wadiga meesha ugu badan way 15 ka maalmood wixii dhaafo fadam fasaad wa istihado jirre way 24 saac wixii ka yarna yawmiya wa layla 24 saac wixii ka yarna fadam fasaad wa jirro inta mudada u dhaxaysa un bay ku jiri karaan gabdhuhu habeen iyo maalin baa ugu yar 4 saac baa ugu yar dhiig ka yar ma jira intaas wax inta ka yar haday inta isku aragtay hadana weydo waa jiro 15 maalmood ma dhaafi kara dhiigu haduu kor u sii dhaafo wixii ka badan waa jiro inta u dhaxaysa un buu dhiigu ku jiri karaa sida ugu badan yihiin gabdhuhu qaalibka ugu badan yihiin waa lagu sheego waa 6 bari ama 7 bari marka 6 bari buu dhiigu haynaya 24 bari bisha daahir haanaysa ama 7 bari buu haynaya 23 bay daahir haanaysa marka bishii la arkaba inuu mar ku dhaco way wasay dumar ku badan yihiin marka haduu 6 bari ama 7 bari dhaafo ilaa 15 umay fiirnaysa 8 bari haduu hayo haduu 10 bari hayo haduu 12 bari hayo haduu 15 waa inuu gudbin way bas inta u dhaxaysan way diigu wadiga xilka leeyahay sida maxaa lagu ogaaday inuu sidaa yahay daliil ba ku soo arooray inay macnaha waan digoodu inta ugu yeertaan ugu badan yahay ma daliilkiisu al-istiqraa way al-istiqraa maxaa la yiraahdaa تتبع وي تتبع علمادي وقت جوغي زمنك امام الشافعي وقت جوغي جوغي ايا دمركي بي راعين ولا ورسدي ولا دمرك غالب كودي انتي او بدنايين 90% اسكدي او 95 يا لو ويدي maxay saadu ku haya saadu ku kugu dhaca saadu kugu dhac saddexda qaybood baa la dhaafin way saddexda qaybood baa la dhaafin way markaas waa istiqsaas la xukumay markaas gabadhu saddex qayb saas uu weeydiigu saas u haya aqallu dhuhri bayna al-haydatayn 15 yawman daahirka ay gabadhu markii dhiig ka qabayso daahirkan ay daahir ahaanaysana waxa ugu yar 15 maalmood baa ugu yar daahir 15 bari ka yar ma jiro hayla gabadha muddada uu haylku ugu badan yahay 15 bari markuu hayo 15 ka kala wayna daahir haato daahir 15 ka yar ma jiro 15 bari ugu yar daahir aqallu dhuhri daahir misha ugu yar وبين الحيضتين لبا حيض ودخيو 15 يوما وغالبه ظاهرك غالب كيس سي وبديه قبل انت ظاهر هذان 24 يوما او 23 يوما سي وبديه ديق حيلك غالب كيس محوها 6 بري ama 7 بري سما ظاهرك marka wuxuu noqonayaa haduu 6 bari hayo 24 bari daahir ahaanaysa bish haduu 7 bari hayana 23 bari bish daahir ahaanaysa ولا حد لأكثره أكثر الظهر ظاهر كأكثر كيس حد مله وذلك بالإجماع فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض ظاهر كأكثر كيس حد مله وعلى بيا وقبضة لحد البلاد ومر إنه دي كدع سنة كإنه مر دي كدع ولي جيد بإنه ندي كدع بالغيا فالزورة بكرتاوه هدي جنوا إسكت طبيعي وواحد دمرك استجد دعاه وإلهي كده بيعي قاركودا ديك بالهين بس كجرو علادنا ما ديك هدي ويدو علاد ما ديك الملك وما تعلقه وهو علاقة لما لها وديك دبيعه اسكا إماده هدي دون تقول مدو ديكو كم غنان كرا مركز وادن اسكا إمانيا ولي جيد بينو ديكو دعين بالغيابا وحالي وريا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك بكم دعي جنب ظاهر مسكاين هذا سي أول جيد بعبادة يعني ديك مركو دور كورع يعني صلاة ما تكون كرانو مسومي كرانو سوما يعني قرآن كما آخرين أيانو سن وقت عبادة الآن أين أصو مري ظاهر بين مسكاين دمر قرصاص هيجر ظاهر اسكا ولا حد لأكثره دوري أكثر كيسو حد مله دمر كقارب وحي لنا يا قوادي أيضا وينانين هدو حوا ديكو كتغو قواد حالي ديكي بابا كتغي
dhalma la-aan inay noqoto un bay ka yaaba hadduu dhiiguba tago dhiigu dhalmada kuma xirne ku xihan maaha. aqalu nifaasi majja, nifaas maxaa la yidhahdaa? dhiig umuleed. dhiig umuleed yani waa dhiigga markay gabadha umusho dhiigga ka yimaado ee canuga ka dambeeyaa nifaas la yidhahda. nifaas waxaa la yidhahdaa addamu aladii yakruju bacda alwalad, canugu markuu soo baxa kulligii dhiigga imaanayo yaa nifaas la yidhaha. midka ilmaha kasoo horeeya dhiig hadduu kasoo hormaray nifaas lama yidhaha, midka canuga la socda nifaas lama yidhaha. canugu markuu raximka kasoo dhamaado soo wada baxo, xataa hadday mataamo yihiin, mataamihii markay soo wada baxaan kadib dhiigga imaadaan nifaas la yidhaha. ma midka ay umusha ku galaysa gabadha. marka nifaaska dhiiggiisa waa dhiig umulasha, dhiigga umusha waxaa ugu yar majja. markii ilmihii kasoo baxay majja waa tufid, dhiig unbaa balaq kasoo yiri wuuna go-ay khalaas. in yar unbaa balaq kasoo, majja macnaa tufid weeye. laxda bay kutubta qaar ku yidhahda markuu ilmihii soo wada baxay unbaa wax yar kasoo daateen oo go-ay. way qabaysanaysaa, horey ka qabaysanaysaa. dhiig dambaba hadday weydo way qabaysanaysaa. wa qaalibuhu qaalibkiisuna 40 yawman, 40 beri baa u badan. gabdho intay umusha ku jiraan waxaa u badan 40 beri dhiigga inuu joogo ilaa iyo 40 maalmood. anna waxaa milankaas caada aan ka dhiganay, dumarkeenu markay dhalaan 40kii bay ku jirtaa, 40 uma yaqaan wax kale male. dhiiggii ma ka go-ay talow ma socdaa, 40kii bay ku jirtaa, umushii bay ku jirtaa. wa akharuhu akarkiisuna 60 yawman, 60 beri baa u badan. 60 beri yaa u badan, 3 qaybood. marka 40kii inuuna caado kaa noqonin baa la doonaya, waa in dumarka lagu baraarujiyo. dhiiggu hadduu markii u horeysayba ka go-ay, markuu masaa u umushayba hadduu dhiiggii go-ay, way qabaysani. cibaadadii oo cibaadadeeday gudanaysaa, salaadeedii, soonkeedii bay gudanaysaa, zawjkeedii bay hadday rabta la seexan kartaa, wax walbaa xalaal u noqon. haddii uu 40ku dhaafo oo dhiiggu weli socdona ma daahir noqon karto ilaa uu 60ka beri ay dhamaysto. waa inuu dhiiggu ilaa 60 beri baa la fiirinaya, 60 beri waa inuu gaaro, 60 beri baa ugu badan, markaasay ka qabaysanaysa. de wixii in caado uu noqday waxaad ku garanaysaa dumarkeena mid markay dhashaybo dhiiggii waa iga go-aylo horey ka qabaysatay ma arkeysa, mid 40kii baa dhaafaylo oo 60 beri ku jirtana ma arkeysa, mid walba 40kii bay ku jirtaa, 40kii horey ka baxdana way qabaysanaysaa. de soo in la helo maaha labada qaybood oo kale, soo in la helo maaha. mid markiiba uu ka go-ay maxaa loo laayay? dhiigga asagoo ka go-ay iska fadhiyaan, 40kii bay ku jirtaa, ma tukanayso, ma soogayso, halkay iska fadhida. cibaadada waa lagu leeyahay bo, waa lagu leeyahay cibaadadaas. waxa 40kii ka badan yahayna maxaa loo laayay? waa kutub kitaabka saasaa ku qoran. wa akharuhu 60 yawman, 60 beri baa u badan. waxuu 40kii dhaafay male, mid walba markii 40ka ka baxdo way qabaysanaysaa sooma, gaaro. marka waa inay dumarku ku baraarugaan. axkaamtan sideeda dumarku khaas u yahay, waa axkaam haweenka khaas u ah. waa inay cilmigan ayagu dhegaystaan o bartaan, waajib uu ku noqonaya. xaylka iyo nifaaska iyo yani waa arrimo gabdhaha khaas uho laga doonaya inay ayagu aada bartaan. yani axkaam khusayso wey, axkaam khusayso waa in laguna baraarujiyo. faslun acdaaru salaat. sala allahu wasalam ala sayidina maxamed.